dheere waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee gobolka Bay waxaa la xoreeyay oo gacanta dawladda ay soo gashay 2012 bishii labaad 2020keeda waxay ku jirtay gacanta dawladda maamulka koonfur galbeed ee maanta koonfur galbeed ka arriminaya iyo galeelidiisa waxay ka horeysay 2 sano saado socota maamulka koonfur galbeed 14 la dhisay qasax dheere 12 maxaa la xoreeyay marka taas macnaheedu waxa waa in 2 sano ay ka weyn tahay maamulka koonfur galbeed laga bilaabo waagaas ilaa ay hadda qasax dheere mashaariicdii yaryar oo meelaha markii la xoreeyo laga fuliyo ee loo yaqaano quick impact project xataa lagama fulin wax oo mashaariic ah oo horumarineed oo meeshaas laga fuliyo haba yaraatee ma jirto markii laga reebo wax yar yar oo dadka deegaanka isxilqaameen oo community contribution ahaan intay is ururiyeen ay ayaga sameyseen oo ay ka mid tahay qasax dheere secondary school oo ka mid yahay iyo xarun MCH ah oo ayadana xilligii maamulkii koonfur galbeed Shariif Xasan dib u habeen lagu sameeyay oo dib loo howlgeliyay maamulkii koonfur galbeed Shariif Xasan hogaaminay markii la yegleelay qasax dheer waxaa loo tababaray ciidamo gaaraya ilaa iyo 470 ilaa 500 inta u dhaxayso waa la qalabeeyay dareeskooda iyo hubkooda waa loo dhameystiray xaquuqna way helayeen laakiin waagaas lama qarameynin oo maxay ahaayeen ciidamo daraawiishay ahaayeen laakiin haba yaraatee maxaa la lahay haba iska yaraadaana xaquuqdana waa helayeen oo xilligaas waxbay helayeen aadeen ugu qanacsanaayeen oo ay maxaa la lahay degmada ugu howlgalayeen laakiin markii talada koonfur galbeed oo la wareegay ninka la yiraahdo Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen wax laga bilaabo 2018 loo wareegay ilaa saacadan hadda aad wareysanayso oo 2026 ay tahay wax haba yaraatee dhalinyaradaas ama ciidanka daraawiishta koonfur galbeed qaybtooda qasax dheere loo qabtay haba yaraatee ma jirto darees lama siinin dilacsiin lama siinin maxaa ku yiraahdaa wax xaquuq lama siinin ciidamada ka jira daraawiishta koonfur galbeed oo degmooyinka koonfur galbeed loo tababaray oo Shariif Xasan tababaray oo qalabeeyay degmooyinka kale ciidamadooda waa la qarameeyay sida diinsoor kuwii joogay maxaa la yiraahdaa maxay ahayd waajid kuwii joogay xudur kuwii joogay ciidamadii degmooyinka ka jiray oo xaqiiqdii madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ciidamo fara badan buu tababaray oo qalabeeyay intii deegaanadaas kala joogay waa la qarameeyay oo waxaa la marsiyay biometric la marsiyay oo ciidamo federaal u diiwaan galsan oo mushaarkooda usoo dhaca laga dhigay laakiin ciidamada ku sugnaa degmada qasax dheere waxa haba yaraatee dilacsiin ah ama maxaa ku yiraahdaa xataa dareeskii aan lagama bedelin xaqiiqdii ciidamada degmooyinka koonfur galbeed ka jira waa kala carareen oo kuwa baaba'ay iyo kuwa waxyar ka joogay noqdeen laakiin qasax dheere aad iyo aad ay u dhabar adeegeen waxay ku dulqaateen in oo maxaa la daruuftaas ku shaqeeyaan oo degmadooda ay maxaa la yiraahdaa ay waardiyeystaan oo amnigooda ay sugtaan dad fara badanna ayagoo daruuftaas ku shaqeynayaan maxaa la lahay ay ku dhinteen oo daraad waa arki kartay inta oo aqoontii dadka ku dhintay difaaca iyo dowlad dhiska deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada qasax dheere caruurtu aqoontooda oo maxaa la lahay deeq raashina uu soo gaarsiiyey wasiirka xanaanada xoolaha federaalka Soomaaliyeed waad arkaysay marka laga soo bilaabo maxaa la xilliga aan ku sheegay ilaa hadda ciidamada waxa ay yaraatee xaquuqa dilacsiin ha ahaato darees ha ahaato dhaqaalaha ha ahaato ama daryeel liidaado ay heleen ma jirto dhinaca ciidamada taas waay degmadana waxa ay yaraatee mashaariic horumarineed laga fuliyay ma jirto marka saar daraadeeda haddii degmooyinkii oo maxaa la yiraahdaa deegaanada koonfur galbeed tusaale ahaan tuuli yar oo awdiin la yiraahdo oo madaxweyne Laftagareen reerkiisa si khaas ah u degaan oo degmada Baydhabo hoos tagta waxaa loo sameeyay waxaa laga hirgeliyay mashaariic waaweyn oo sida biyo-gelinta saldhig la dhisay xabsi la dhisay iskuulo la dhisay waxyaabo badan loo sameeyay oo mashaariic horumarineed marka taas daraadeeda dulmigaas oo matalaada loo waayay dawladdii federaalka dadkii ku matalayay iyo kuwa dawlad goboleedka koonfur galbeed dadkii matalayay indhaha ay ka laabteen
oo aan waxba u qabanin oo aysan booqanin aysan hal maalin u hadlin maxaa la lahaa hay-adaha samafalka aysan kala hadlin waad la socotaa degmooyinka sida xudur oo kaleeto dhowr jeer ayaa madaxweynaha iyo golaha wasiirada intii meesha tageen waxaa lagu casuumay hay-adaha humanitarianka ama hay-adaha gargaarka iyo kuwa hirgeliyay mashaariicda horumarineed laakiin nasiib darro degmada qansaxa dheere waxa laga hirgeliyay ma jirto airbortkii dadka si iskooda ah ugu jafteeraana loo samaynin waxaan xasuustaa hay-ad la yidhaahdo tis plus oo USAID-ka ah ayaa rabtay inay dhisto ceelboorka degmada qansaxa dheere nasiib darro dad mas-uuliyiin ah oo barnaamijkaas ku garabsiiyaan la waayey mashaariic idaayada ahayd degmooyinka qaar waa ka faa'iidaysteen tusaale waxaa ka mid ah degmada diisoor oo airbortka hay-adda tis plus ee USAID dhistay waxaa ka mid ah waddo 4 kilomitir ah oo laga bilaabo baakinka diyaaradda ilaa iyo magaalada dhexdeeda la dhisay football stadium la dhisay waxaa la dhisay women center waxaa la dhisay xaruntii degmada marka si la mid ah mashaariicdaas waxaa loo hayay degmada qansax dheere laakiin nasiib darro hoggaan xumo matalaad xumo iyo dadkii deegaanadaas ka soo jeeday oo aan daryeel iyo maxaa la yidhaahdaa aan danaynaynin matalaadii iyo mas-uuliyiddii ayay ka saarneedna gabay waxaa sababtay in qansax dheere maanta ay ka harto degmooyinka deegaanada koonfur galbeed oo aad arki kartaan sawirada qansax dheere laga soo qaaday aad u malaynaysa meel oo baadiye ah ama checkpoint ciidamo oo ku nool yahay aad u malaysaa waa aragtay kulley sawirada laga soo qaaday taasna waxaa waaye qof walbo wax garad ah oo maxaa la lahay deegaanadaas ka soo jeedo waxaa waaye wax aad u damqinay oo aan maxaa la yidhahdaa aan lagu qanci karin aan la aqbali karin waaye marka waxaa intaas dheer aniga hadda aan kula hadlayo waxaan ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalkaan ka mid ahaa waxaan ka shaqaynayay mashaariicda xasilinta xaqiiqdii dhowr jeeraan u dooday waxaa jira shir oo coordination meeting la yidhaahdo oo bil walba ama 3 biloodba mar la qabto oo looga hadlo degmooyinka gobolka degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed wax la qabtay iyo sida ay yihiin iyo iskeel lagu cabirayo xeerka degmooyinka ay gaareen oo la yidhaahdo fragility index iyo majority model oo lagu cabirayo macnaha degmooyinka qaangaaristooda iyo waxyaabihii loo qabtay iyo waxyaabahay u baahan yihiin ayaa jirto dhowr jeeraan soo bandhignay dooda qansax dheere nasiib darro wax walba waad la socotaa qof shaqaale hoosaad iska ah wax uu goynaya iska yah marka saas daraaddeeda dhibaatooyinkaas oo isbahaystay iyo adkaysigii muddo 8 sano ah la adkaysanayay iyo dadkii deegaanka oo cadaadis caburin maxaa la yidhahdaa xuriyatul qowlkii meesha ka baxay deeqihii yaroo oo maxaa la yidhahdaa hay-adaha samafalka oo ayaga naftooda ay diversion waxa la yidhahdo lagu sameeyey ama leexasi oo deeqihii naftooda lagu sameeyey iyo maxaa la yidhahdaa dadkii deegaanka oo caburin iyo cagajugleen iyo musaafurin iyo jirdil iyo maxaa la yidhahdaa assassinationa ama dilil qorshaysan lagu sameeyey waxaa jira dad haldoor ah oo degmada qansax dheere ayagoo u hadlay la dilayaa jiro waxaa jira dad haldoor ah reer qansax dheere ah oo lasoo musaafuriyey oo saacan aan kula hadlayo magaalada muqdisho musaafuris ku joogaa jiro marka dhibaatooyinkaas oo isbahaystay awgood ayaa waxay sababtay in ciidamadii maxaa la yidhahdaa daraawiishta koonfur galbeed ee ku sugnaa degmada qansax dheere ay gadoodaan gumaadka lagu hayo dadkooda ay ka gadoodaan gumaadka lagu hayo degmadooda ay ka gadoodaan ayna maxaa la yidhahdaa ku dhawaaqaan inay ka mid yihiin ciidamada badbaadada koonfur galbeed ee dhowaantan kacdoonkooda ka bilowday maxaa la yidhahdaa degmada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya marka si xeeriyadan oo maxaa la yidhahdaa 8 sano dadka kor saarneed isee qaado degmadii dib looga dhiso looga shaqeeyo amnigeeda horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda reer qansax dheere maanta waxay si official ay ugu dhawaaqeen inaysan maamul ahaan hoos tagaynin maxaa la yidhahdaa maamulka sharci darrada ku jooga ee koonfur galbeed oo xaq dastuuri ana ay u leeyihiin inay si toosa u hoos tagaan dowladda federaalka soomaaliyeed ayadoo la tixraacay dastuurkii ku-meel gaarka ahaa ee dowladda federaalka soomaaliyeed marka saas daraaddeeda maanta oo 26 maxaa la yidhahdaa 15 bishii 3
labada kun labaatan iyo lixda ah reer qansax dheere waxay go'aansadeen kadib markii guddoomiyihii oo muddada dheeraa magaaladaas xukuumayay oo gumaanayay dadkeeda caburinayay dadkeeda musaafurinayay maxaa la yidhahdaa wixii deeqa aan leexsanayay magaaladaas dhibka badan ku hayay ay iska qabteen waxay go'aansadeen in si toos ah maxay ahayd ay ula macaamilayaan dowladda federaalka soomaaliyeed waxayna baaq u soo jeediyeen kana codsadeen dowladda federaalka in maxaa la yidhahdaa gargaar lala soo gaaro dadka dhibaataysan ee ku dhaqan degmada qansax dheere maxaa la yidhahdaa muddada dheerna dhibaatada ma aha xaqiiqdii dhibaatada hadda jirto dhibaato oo maxaa la yidhahdaa muddo dheer ay ku jireen dadkaas ayaa jirtay oo sababtay inay godoodaan waa og tahay magaaladaas godoona saarnaa waa xirneed hadda ilaahay mahadiisa keliya waxaa u furan accesskii oo magaalada baabuurta iyo hadda dhow loo furay marka saaxiibow taasaa sabab u ah asalna u ah in oo maxay yidhahda dadkan ay godoodaan oo ay maamulka koonfur galbeedna ka soo jeestaan oo ay dhahaan oo ka hoos baxnay waa tahay dabcan degmadu waxay leedahay siyaasiyiin kala gedisan haddii ahaan lahayn heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo heer federaal miyaysan waxba u qaban oo degmadaasi aysan la jaanqaadin degmooyinka kale ee koonfur galbeed saan horey kuugu sheegay xaqiiq waaye degmadu waxay leedahay siyaasiyiin oo heer dowlad goboleed iyo heer federaalba way leedahay oo ku matalayay golayaasha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedkaba laakiin nasiib darro siyaasiyiintaas waxaa jira kuwa 10 sano meesha fadhiyey kuraasta oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xildhibaanada federaalka qaar ka mid ah oo 10 sano meesha joogay nasiib darro one day lama sheegin ayagoo intii falaad jeed qaataan deegaan doorashadooda ama degmada qansax dheere ay soo booqdaan ama ay sameeyaan intii meeshaas hay-adaha samafalka ku casuumaan meeshaas hay-adaha abiil ugu diraan oo deegaanadii soo booqdaan deegaanadii wax u qabtaan ilaa hadda ma dhicin marka by name ama magac ahaan waa iska jiraan dad u nasab sheegto oo golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ku jiro ama golaha shacabka iyo golaha sanadka maxaa lalahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dad ku jiro waa jiraan oo magac ahaan sheegto laakiin by name ma dhaafsisana dad wax u qabtay ma aha dad matalaadooda degmadaas si dhab ah ugu matali ma aha dad aad iyo aad ugu gaabiyo waaye inay wax u qabtaan degmada qansax dheere dabcan maamul baa meeshii ka jiray oo laga farmaroojiyey oo taladii laga qaaday miyay isaga bixeen magaalada mise magaalada ay ku sugan yihiin maamulkaas maamulkii hadda meesha ka arriminayay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada qansax dheere wuxuu ku biiray xoogaga xaq u dirirka ama badbaado koonfur galbeed oo ku biiray laakiin guddoomiye ku-xigeenkii maxaa la yidhahdaa guddoomiye ku-xigeenadii kale iyo guddoomiyihii degmadaba waxay hadda agulaadla ay ku sugan yihiin harunta ciidamada midooda africa ee degmada qansax dheere meeshaas ay ku jiraan waxayna sugayaan falayd oo looga qaadi doono degmada baydhabo ee xarunta ku meelgaalka koonfur galbeed waayahay warar waxaa jira oo la sheegaya ee baydhabo laga abaabulaya oo la xiriira in saraakiil deegaanka ah ee la qorsheynayo in gaadiid iyo ciidan iyo saanad military in la siiyo ay dhexmaraan shabaab isla markaana ay weeraraan ciidamada hadda la wareegay wararkaasi maxaa ka jira waxaa ugu maqaalaha in oo jiro isku day la doonayo in ciidan lagu abaabulo degmada baydhabo iyo tuulada awdiinle degmada baydhabo u dhowo oo maxaa la yidhahdaa hubkii iyo saanidii iyo wixii dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer koonfur galbeed ka wada dhaxay lagu haayo oo si gaar ah meesha loogu dhigtay xarunta keedka ciidamada koonfur galbeed meesha loogu dhigay iyo kuwo kale oo berdaale laga sii maraya inay qorsheynayaan inay ku weeraraan degmada qansax dheere warkaasaan ugu maqaalo ah degmada qansax dheere iyo degmada baydhabona 90 kilomitir u dhaxayso dhahdaana hood badana ku jiro waxaana maamula maxaa la yidhahdaa al-shabaab marka dee arrimahaas waana soo gaareen laakiin anaga haddii oo reeg laga keenay awdiinle ama berdaale laga soo qaaday qansax dheere lagu weeraro waxay noola micno tahay qabaa'ilada oo meeshaas degaan inay nagu soo duulanay noola micno tahay annaga reer qansax dheere haddaan nahayna waxa waaye gacmaha ma laaban doono oo waa iska difaaci doona haddii ilaah yidhaahdo
marka arrintaas wax culays welwel naguma hayso waxaan leenahay haddii oo maxaa la yidhahdaa aad qansax dheere soo hunguriyeysaan oo aad isku daydaan inaad soo weerartaan jahannama soo doonateen gacnaheennana ma laaban doono waa iska difaaci doonaa saasaan leeyahay muxuu yahay qorshaha iyo isbeddelka dadka deegaanku dadka deegaanka reer qansax dheere qorshahooda wuxuu yahay in oon amnigooda ay sugtaan midnimadooda ay hoojistaan maxaa la yidhahdaa dowladda federaalka soomaaliyeed ay la macaamilaan maadaama ay maamulkii koonfur galbeed oo intaas lagu dulminayay ay maxaa la yidhahdaa xiriirka u jaraan oo si toos ah dowladda federaalka ay diyaar u yihiin inay maxaa la yidhahdo ay la macaamilaan dastuurka dowladda federaalkana uu ogol yahay in ay la macaamili karaan dowladda federaalka marka wixii xaquuqa ama horumarineed ama wax walbo in ciidamada naftooda in loo qarameeyo waxaana ugu baaqaynaa dowladda federaalka inay qarameeyaan ciidamadaas geesiyaasha oo adkaysiga badan in la qarameeyo xuquuqdoodana ay helaan marka qorshayaasha waxaa waaye in degmadaas horumarkeeda amnigeeda iyo midnimadeeda laga shaqeeyo taasaa maxaa la yidhahdaa noo qorshaysan haddii ilaa yidhaahdo dowladda federaalkana waxaan u sheegaynaa gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka in maxaa la yidhahdaa aan annaga taageersanahay wax ka beddelkii dastuurka ee lagu sameeyey dhowaantan waa taageersanahay dowladda federaalkana waa taageersanahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana waxaan kala shaqayn doonaa aragtidiisa doorashada qof iyo cod in laga hergeliyo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo degmada qansax dheerena ay ka mid tahay marka dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda waxaan leenahay xaquuqdeena maadaama aan horey u waynay oo ayna duudsiyeen maamulkii koonfur galbeed waxaan idinka codsanaynaa ama idinka rajaynaynaa in si dhow noola shaqaysaan oo degmada qansax dheerena il gooni ah ku fiirisaan